بسم الله maanta halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id waan kaga hadlayo saddex qodob oo muhiim ah cadaaladda iyo hanti suulinta anigu waxaan ku jiraa guddiga hanti suulinta iyo dib u heshiisiinta maxaa aamusiyay xildhibaanada wax badan hortooda ay ka dhacayaan waxaan rabaa qodobka inaan bal si tacliiqa aan u dhex galo oo aan u sheego dadka markii ugu horeysay ee baarlamaankan 6 bilood ugu horeysay ama 7 bilood ugu horeysay waa la ogaa doorarkii uu qaatay markii horeysay waxa la soo eedeeyay laba xildhibaan oo Saabir iyo nin la yiraahdo Xasan Macallin oo lagu soo eedeeyay inay qarandiis yihiin waxa la rabay inaanu xisaanada laga qaado xildhibaanadu gaashaanka ay u daruureen nin walbana way haysataa birito ayaa la yiri arinta labaad oo dhacday waxay ahayd qalbi dhagax oo gacanta loo geliyay dowladda Itoobiya xildhibaanadu waxay ka qaateen arinta door aad iyo aad shariif ah oo wanaagsan markii la arkay xildhibaanadu sida ay u ilaalinayaan wadaniyadii iyo dadkii iyo diintii waxaa hinaasay oo masayr galay golihii wasiirada oo isku duuban ayaa duulaan ku soo qaaday baarlamaankii number 1 waxaa la riday gudoomiyihii baarlamaanka markaa ee hawshaas joogay markii labaadna waxaa si fiican loo soo dhex galay xildhibaanada iyada oo madaxda sare ee dawladda ay ugu hanjabayso xildhibaankii naga hor yimaada ee dawladda mucaarada wuxuu marayaa wadadii ay mareen xildhibaanadii impeachmentiga ka keenay madaxweyne xasan sheekh wadadaas ay marayaan arintaasi waxay noqotay arrin xildhibaanada u keentay inay wax badan ka gaabsadaan waxa kale oo dadka xildhibaanada aamusiyay ka mid ah xamaasadii dadka shacabka ay u hayeen markii la doortay madaxweyne Farmaajo isaga iyo xukuumaddiisa taasina waxay keentay in xildhibaanadu ay hadli waayaan ee ay ka baqaan xamaasadda shacabku inay jirto maanta xildhibaanada waxaan ugu baaqayaa xamaasadii way jirtay dadka shacabka ay maanta waxay taageerayaan xildhibaanka ka hadla xaqiiqada xildhibaanka ka hadla Soomaalinimada xildhibaanka ka hadla isku duubnaanta maanta oo aynu ognahay in dalkeena la ku haysto waxaan leeyahay xildhibaanadu guntiga dhiisha iskaga dhiga meeshana ka kaca Soomaalina u horseeda baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne is-xisaabiya waxaan is leeyahay xal waxa noqon kara si xildhibaanka ay uga baxdo cabsida ah dariba nimankan madaxweynaha iyo wasaaraha iyo xukuumaddu ay lacag ku duldhigayaan oo kursiga iyo siyaasadda ka bixinayaan waxa xal noqon kara in la helo dad wax doorta oo erga ah oo tiro badan kumaankum qof waa inay soo doortaan xildhibaanka haddii la rabo xildhibaan dhab ah oo dalka iyo dadka matali kara ee matalaad haysta xildhibaanada waxaan ugu baaqayaa xildhibaan aamusnaan ku matali kara gobolkiisii iyo deegaankiisii iyo dadkii soo doortay ma jiro marada aad huwateen madaxa ka qaada waxaan leeyahay turta khayr allah idin waafajiyo qodobkaas saddexaad ee haray wuxuu ahaa sababtii in doorashadii hore ee doorasho dadban ee la soo maray kharajaadkeeda waxa bixinayay in doorashadu ay socoto processkeeda lacagta waxa bixinayay UN-ka qaybna waxa bixinayay dawladdii markaa jirtay ee Soomaaliyeed waxaad ogtiin in shirkii uu dheeraaday ee xildhibaanadii dib lagu soo xuli lahaa muddo kooban ay qaadatay 3 bilood waxaa kordhay kharajaadkii ku socday hoteeladii la keeyay gaadiidkii la keenayay meelihii lagu qabanayay doorashooyinka sida jaamacadaha iyo dad meel ay leeyihiin kharajaadkaas waxaa damaanad qaaday gudoomiyaashii joogay goobihii doorashada tii Galmudug tii Hirshabeelle tii Bakool tii Jubbaland tii Puntland halkaa waxaa ka raacay gudoomiyaashii lacag kharajaad ah oo dheeraad ah oo ay sacrifice ugu sameeyeen oo iyagu ay damiinteen lacagta hadda ka hor waxaan kaga hadlay baarlamaanka gudihiisa waan ka xumaay dad saxaafadda ka shaqeysta qayb ka mid ah inay u turjumaan lacagtaas inay tahay aniga mid lagu leeyahay ana ay xildhibaanadu deebi qabaan lacagta deynta waxa lagu leeyahay dawladda Soomaaliya nin kasta oo xil qabtay wuxuu xilka ku qabtay processkii la soo maray iyo kharajaadkii ku baxay madaxda qaranka waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee hoteelada lahaa ee gaadiidka lahaa ee saxaafadda lahaa lacagtii ku baxday in si degdeg loo bixiyo haddii aan taa la bixin macnaheedu waxa weeye doorashada meeto uma socono weeye macnaheedu waxaan ugu baaqayaa arrintaana in sida ay tahay looga hadlo waxaa jira in ay muddo badan hadda ay ka socotay dacwado dad guryo isku haysta
waxaan aad iyo aad ugu kuurgalay dacwadahaas iyo sida ay ku socdaan iyo hanaankooda waxaa iiga soo baxday qof haysta dukumentigii dowladdii siyaad barre iyo dowladdii ka horreeyey ay siiyeen oo gurigiisii ku qoran oo ay kula dacwoonayaan dad haysta dowladdii carta dukumenti ah waa wax aad iyo aad loola yaabo qof inuu halkan joogo 2 sano 3 sano 4 sano oo qofkaas uu biisho wixii gurigiisa qiimihiisu joogay wax ka badan arrintaas waxay dhaawacaysaa midnimada iyo walaalnimada Soomaaliyeed waxaan arkay dad ay la dacwoonayaan dad faramaran oo aan dukumenti haysan waa arrin kale oo iyaduna aad iyo aad cajiib u ah waxaan arkay xukunno aan loo qabsan oo aan lagu salaynin hab waafaqsan cadaaladda maadaama intaasu ay jiraan waxaan ugu baaqayaa dadka waxgaradka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed culimada diinka Soomaaliyeed in ay dib u heshiisiin dhab ah u qabtaan dadka Soomaaliyeed ee maanta halka cadaalad darradu ay ka jirto aan ognahay doorkaas inay qaataan culimada waxa la ka hadlaan qofka xaaraanta ku haysta guri cadaabka iyo ciqaabka uu leeyahay waxa la rabaa dadka odayaasha ee dhaqanku inay ilaaliyaan dhaqankiisa banaa waxaan ugu baaqayaa odayaasha magaalada Muqdisho ee dhaqanka inay gogol dhaqan oo Soomaaliyeed oo badbaado oo midnimo ay ugu baaqaan dadka Soomaaliyeed dadkana wixii hanti ahaa ee kala galay la isu celiyo hantidu waxay u qaybsataa mood iyo nool wixii mood ahaa way dhinteen waa baabeen waxa nool ee jooga ummadda loo kala celiyo sidaan ha loo gaaro walaalnimo iyo midnimo Soomaaliyeed taasaan ugu baaqayaa dowladda waxaan leeyahay madaxda xukuumadda iyo madaxweynaha aad iyo aad ugu soo jeesta arrintaas hadda rabtaan inaad dadka iyo dalka badbaadisaan